السلام عليكم كلنتو عن وناكسن خيرتنا داون سباي ميل كستو جوجتان barnaamijka xidiga nolosha geedi socodkiisa saddexaad ayaynu ku guda jirnay waxaaynu ku soo falanqaynay xidiga ay kamid yihiin Maxamed Saalax noloshiisa hore iyo taariikhdiisa kubadda cagta iyo waliba ciyaaryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo maanta yaa inoo marti ah maanta waxaynu ku marti qaadi doonaa wiil Argentina lagu dhalay taariikhdu markii ahayd 1987 24 Juun waa Lionel Messi وحرفت له كبدا عقتها waxa uu qarankiisa iyo dalkiisa hooyo qarankiisa ma dalkiisa hooyo andhahe Argentina oo ciyaara sidoo kale waxa uu kooxda Barcelona uu ku nagi uu yahay mid ku nagi oo meel laba ka aadin haba yaraatay Barcelona ayaa uu abaal weyn ku leh wiilkan oo noloshiisa la sheegay in marxalado kala duwan oo aad u xiriir badan ay soo martay Lionel Messi waxa uu sanadkii 1987 Juun ku dhashay Rosario Argentina waxa la tilmaamaa inuu soo maray nolol aad u adag oo ay kamid ahaayeen in uu jidhkiisa qayb kamid ah ay ka muuqdeen calaamadaha curyaannimada waayihii qisada kubadda waxa uu ku soo bilaabay isagoo aad u da'yar wuxuuna ahaa da'diisu oo kaliya 13 sano jir da'da 22 jir markuu ahaana waxa uu ku guuleystay Ballon d'Or waa qofka saddexaad ee 4 caruur ah oo qoyskooda uu ka kooban yahay qisada nolosha wiilka lagu magacaabo mucjisada kubadda Lionel Messi waxa ay ka dhigan tahay qiso aad u xanuun badan marka uu fiiriso deegaanka iyo goobta uu ku soo barbaaray waxa uu fursad u helay in uu ku biiro waxa loo yaqaan Barcelona Youth Academy isagoo kadib markii dambana helay in uu ku biiro Royal Spanish Football Federation waxa loo yaqaan sanadkii 2012 waxa uu bilaabay wuxuu ka mid noqday dadka adduunka ugu saamaynta badan uguna caansan marka laga yimaado taageerada uu ku leeyahay kubadda cagta iyo masraxyada waxa si weyn looga taageeraa suuqyada kale ay ka mid yihiin ama goobaha kale ee baraha bulshadu andhaha ay ku kulmaan ay ka mid yihiin barta baraha bulshada waxa la tilmaamaa 2007 inuu bartiisa Facebook ay ku xinaayeen tirada gaariga 7 milyan oo qof 2014 research ay samaysay kambaniyada ka ganacsada agabka ama walxaha sports waxay tilmaameen 87% inuu yahay qofka loogu taageero badan kaasi waa qisada Messi waxayna cusub doonaa maalin walba ciyaaryahanka xidigaha filimta iyo nolosha heerka fiican ka gaaray daawade ku xidhnow page-keena mahadsanid